madaxweyne mahadsan tahay laakiin waxaad ogaataa inay Soomaaliya inagina sugiso aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa cawda cashadan adoo qabatay guddideedii hay'ad ixtiraaf hadiska waa guddi loo baahnaa in fact haddana waxay u baahannahay in guddida la establish gareeyo istaraatiijiyad loo sameeyo aynu qaadno magaalada siyaasad weerar ah si aynu ixtiraafkeenu helno waxaanu aan doonayaa in isdul taago shirarka ka socda xamar ee madasha lagu yeeray ee hadda maanta iyo xalay ka dhamaaday ee murtiyeedka soo saaray iyo wadamada IGAD waxa weeye anagu waxaanu aragnaa horta magaca Soomaaliya jumhuuriyaddii la sameeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya ka tukneed magaciisa lama oran jirin Soomaaliya waa Soomaaliya Itaaliya solution-ka oranaya hal ilaaliyo xuduudaha iyo midnimada Soomaaliyana uma arkeen ay ku jirto Soomaaliland waa Soomaaliya Itaaliya laana markii Soomaaliya Republic burburtay Soomaaliya Democratic Republic qolo kasta magaceeda bay qaadatay inuu Soomaaliya baan qaadanay iyaguna Soomaaliya qaatay marka Soomaaliya leeyahay it doesn't concern Somaliland waa Soomaaliya Itaaliya anu waxaan u aragnaa habkan loo wada arrimaha Soomaalida inaan ahayn hab laga yahay magalaan saayay sincere inay nabad ka dhacdo Soomaaliya laana Soomaalidu ma aha qoomiyad kala jaajaada sida Ethiopia kale ee loo sameeyay ethno states qabaa'il ku samaysan isir waa qabaa'il hal geed ka samaysan in la yiraahdo waxa la sameynayaa dawladda gaagaab yar yar oo qabaa'il ah oo ilaa hadda lagu guuleysan waayay wax aan practical ahayn waxaan u aragnaa in dan Soomaali la wadinay dana kale la wado oo wadamo kale u adeegayaan waxaan u aragnaa IGAD inaan daacad ka ahayn inay Soomaali wax noqoto amba Soomaali ahaato amba Soomaaliya oo markii fikireen ay arkeen ay dan moodeen dantooda inay tahay Soomaali kala daarsan mid xanuunsan si mid bogsatay oo la isku xiray oo isla dhiman doono aanu aragnaa waxaan markaa aragnaa aan ugu talina u sheegna madaxda Soomaaliya inaanay dantooda ahayn in la isku soo adeegsado wadamo shisheeye ah kolba wax aan aqliga gelin laga raadido danta Soomaalida aan ahayn in la kala qoqobo gaalkacyo la qaybiyo Kismaayo la qaybiyo Hiiraan la qaybiyo inay dantooda ahayn baan aragnaa danta Soomaalida waxa ku jirta inay ownership-ka arrimahooda inay gacanta ku samaystaan sidii Somaliland ugu samaysantay inay gacanta ku dhigaan aragnaa hadday Soomaaliya madaxdooda ka dhigteen priority-gooda ka dhigteen in Somaliland la soo qabto anu waxaan u aragnaa inaan taasi wax suurtagal ahayn Ilaahu ba Somaliland qaban kara subhanahu wa ta'ala wax Ilaahay damacsan yahay oo dhisay cidna ma qaban karto waxaan u aragnaa todobada nin ee imanka madasha ku jira ee ka soo wada jeeda Soomaaliya inaan nasiirka Somaliland aan ka talin karin waxa weeye iyagu inay tooda ka taliyaan baa weeye laakiin anaga haddii Soomaaliya isa sarifto amba lix qabiil iska dhigto oo states ku sheega amba shan anaga Soomaaliya waa noo Soomaaliya laakiin Somaliland ilaa 91kiina processka Soomaali lagu hagaajiyay Soomaaliya lagu hagaajinay marna kama qayb galin cidda halka naga joogtaana waa shakhsiyaad laakiin cidna ma matalaan laakiin anu waxaan u diin sheegaynaa inaan shacabka Somaliland aanay ka wakiilahayn Axmed Madoobe Cabdirashiid Cabdirashiid Cabdiweli Gaas ninka la yiraahdo Shariif ninka la yiraahdo Jawaari Xasan Sheekh iyo Cabdikariim Guuleed waa todoba madasha la baxay Somaliland todoba ashay mustaqbalkeeda kama shaqeeyaan Somaliland mustaqbalkeeda ka shaqeysay dawlad dhisan institution sano shaqeynayay nabadgelyo keensaday lacagtoodii samaystay calankoodii samaystay aan xuduudii international aan meel ka jabin marka arinta waxaan ku arkaa muqdisho lagu arkaa waa arin Soomaali ay aan Somaliland aanay dan ku lahayn waxaan anagu diyaar u nahay inaan gacan ka geysano gacantan ka geysana ma hamid aanu ka nahay khaainama mid naga run ah ayaan jecelahay insha Allah taala waxaan madaxweyne aan ku talin lahaa
inaynu Soomaaliya cid inaga xigtaa ma jirto waa dad aynu darisnahay waa dad dan iska xiran yihiin inaynu doorashadooda si dadban gacan uga geysanaa Uganda ayaa ka geysanaysa Djibouti ka geysanaysa Ethiopia ka geysanaysa Mareykan ka geysanaya innaga na way nagu waajib inuu dadka taladooda wax ka geysano tal ku yeelana si wadamada kaleba ee aanaynu oran wax nama khusayso wayna khusaysaa wanaagooda waa wanaageena xumaantooda waa xumaanteena maanta wada arkay way dhiig baxeen haddaynu inaguna aynu wax ka qaban inay weynala degi doonaan waa nin dabaasha yaqaan inaan dabaasha qoon la isku xidhay marka waxay leedahay taasna inaanu guddideena aynu istiraatiiji sameysana waa dalka aan dariska nahay wax wada lahaan jirnay dad xididanahay isku eesirnahay inaynu gacanta la galaa oo aynu gacan caafimaad qabtaa oo taa'igad Soomaaliya isku mashquulsho oo iyo mini states islaaya oo imika soo wada la doonay in gobol kastaba ilaa waa state ba ciidamo loo sameeyo u gaara marka waa ciidamada hadhow istiilaan ba weey inay Soomaaliya isku mashquulsho qayrkiis ka hadho Afrika ka hadho adduunka ka hadho caarkooda iyo caruurtooda ay daasanaadaan dibadda ayaa la doonay oo qabkii iyo isla weynaantii iyo sharaftii Soomaaliya ku faani jirtay Soomaaliya baabisay si aynu u badbaadino waa inuu gacan ka geysanaa baan la walaalahay madaxweyne ma hasan tahay aad baan ku mahadnaqaynaa cawda cashadan laakiin waxaad ogaataa inay Soomaaliya inaga sugiso waa nimanka reer Soomaaliya wax leedahay ha ka dhiganina waajibaadkiina Soomaaliland si loo undermine garan lahaa Soomaaliland waa dalkiiniya gacanta dadkiiba lahaaba ku haya shisheeye kuma hayo waa la isku baahan doonaa waxa weeye kalgacal iyo walaalnimo in la abuura weeye hatred in la abuura maaha wanaagii maaha faa'iidaduna maaha in Soomaaliland saaqido waxa weeye faa'iidada Soomaaliland gacan ay qabato ku dayataan dimuqraadiga sameeyeen iyo nabadda aan sameeynay insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala madax fiican u soo saaro inuu doorasho wanaagsan u sameeyo anaguna gacan ka geysano madaxweynena maanta inta Ismaaciil Cumar Geele oo ugu geysay inteedii ba lagaga fadhiyaa waa u simanahay inaga iyo Ismaaciil Cumar Geele Ismaaciil Cumar waajibkiisa uu sameeyay ilaa ciidamo u geeyay waa gacantu qabtay inaguna inta in laga nooga fadhiya waa arrin sugisa oo indhaa ka qabsan karin baan leeyahay walaalayaal anagoo diyaar baan nahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh